السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصحابتا qiimaha badan ee ku xiran janalka Aamin Technology iska noqdo wanaagsan. Insha Allah ta'ala maanta waxaynu bilaawi doonaa course-kii aad in badan aad sugeyseen oo ahaa Illustrator-ka. Doonaysa inaad awoodid graphic design, doonaysa inaad gacantaada aad ku samaysatid wax kasta oo la xiriira graphic design-ka. Ma tahay qof kororsanaya xirfad uu runtii uu ku heli karo shaqo? Fadlan jawaabta haddii tahay haa, waxaan kuu ballan qaadi doonaa hadduu aan la idmo inaad noqon doontid graphic design farta ka xiran. balse waxaa lagaa rabaa oo keliya laba shuruud. Shuruudda koowaad oo lagaa rabo waxay tahay inaad course-kan aad meel dhamaysatid kadib fiidiyoyaasha markaad daawatid aad practice-garaysid. runtii waxaa jirta oraah ingiriis oo dhahayso more practice makes the perfect. waxa badan oo lagu celceliyo result wanaagsan ayaa ka imaanaya. course-ka markaad daawatid fiidiyoyaashiisa waxaa lagaa rabaa inaad practice-garaysid aad ku celcelisid. shuruudda labaad oo lagaa rabo waxay tahay course-kan markaad dhamaysid sidoo kaleeto inaad baratid Photoshop. maxaa yeelay haddii aad baratid Illustrator oo keliya waxaa tahay half graphic design balse ma tihid full graphic design. waxaa taqaanaa boqolkiiba konton kaloo kaa maqan waa Photoshop. waxaa la rabaa inaad Photoshop baratid, Illustratorna aad baratid. labadaas software haddaad isku baratid waxaa tahay full graphic design kuna heli kara shaqo walbo shaqada u baahan yahay. fadlan haddii aad nuuc cusub tahay nagu soo biiro janalka subscribe sidoo kaleeto haddii aad ka mid tahay asxaabta hore noogu taxnayna waxaan kaa codsanayaa taargetkayna waa inaan gaarno 1k course-kan. dadaalkeedana adiga ayaa laga rabaa. waxaa la rabaa inaad asxaabtaada u shirgeliysid. taasina waa iga codsi qasab maaha. fadlan asxaabtaada halkan keena si nagu soo biiraan ay ugu faa'iideyso. janalkan waxaad ka heli kartaa 3 course oo kala ah. course koowaad waa database sida loo maamulo kambaniyyaasha organizationada database-kooda anigoo isticmaalaya luqadda lagu magacaabo SQL. sidoo kaleeto sida loo dhiso website haddii aad jeceshahay inaad dhistid waxaad ka daawan doontaa janalka Aamin Technology. waxaynu ku dhisaynay HTML iyo CSS iyo sidoo kaleeto graphic design oo course koowaad oo aan ku soo baranay Photoshop. haddana waxaan soo geli doonaa videogan waa Illustrator. hadda ayaan u samayn doonaa playlistigiisa inta ayaan kasii heli doontaa hadduu aan la idmo. insha Allah maanta waxaynu baran doonaa introduction-ka Illustrator-ka software-kan. marka hore horta waxaynu arki doonaa waa maxay Illustrator. su-aasha koowaad oo aynu isla fahmi doono waxay tahay waa maxay Illustrator. Illustrator waa software ka mid ah software oo loo isticmaalo graphic design-ka. runtii waana software-ka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo graphic design-ka uguna quality fiican. markii la dhahayo xagga tayada software-ka ugu fiican quality-giisana ay tahay high. waxaa soo saaray software-ka shirkadda lagu magacaabo Adobe. sidoo kaleeto software-ka horeeto Photoshop iyo kanne waxaa isla saaray hal shirkad oo Adobe lagu magacaabo. waxaanu fahmi doonaa markaynu fahno qeexitaanka software-ka waa maxay farqiga u dhexeeyo software-kan horu soo barano waa Photoshop iyo sidoo kaleeto software-kan kaleeto oo lagu magacaabo Illustrator. waxaa kaa tusi doonaa meel fudud oo aan ku wareereynin farqiga u dhexeeyo markaan dhahno laba software. hal sawir oo noo cadeynayo farqiga u dhexeeyo aan kula wadaagi doonaa. sawirkan aad u jeediin waxaa lagu kala sameeyey horta marka horeeto waa looga waxaa lagu kala sameeyey laba software. midkan quality-ga fiican waxaa lagu sameeyey Illustrator halkan kaleeto lagu sameeyey Photoshop. yacni markii aad sawirkan arkaysid ma ahan quality-giisa rasmiga ah balse zoom ayaa lasoo geliyey. markii lasoo dhaweeyey kansa u jeediin quality-giisa waxaa lagu magacaabo vector haddaa aragtid means Illustrator. sidoo kaleeto Photoshop-kana waxaa lagu magacaabaa raster means Photoshop. raster haddaad maqashid waxaa raster waa Photoshop, waxaa vector waa Illustrator. marka quality-ga loogooyinka editkarada businessyada ani design waad samaysanaysid waxaa kugu talinaya inaad ku samaysatid Illustrator. waana course-kan hadda bixihaayo waxaa la rabaa inaad say tahay aad u baratid kadibna design-yada aad ku dabaqtid. sidoo kaleeto waxaynu arki doonaa interface-ka oo yeelan doono software-kan. software-kan interface horta marka hore waxaa lagu magacaabaa qaybtan ugu horeyso waa qaybta ugu muhiimsan. runtii haddii aadan fahmin way kaa kala daadan doontaa inaad fahamtid, way kugu adkaa doontaa inaad fahamtid qaybahaas. maxaa yeelay wax kasta aas-aaska waay. aas-aaska software-kanna waa inaad fahamtid qayb kasta waxay qabatay shaqadeeda. qaybtan ugu koreyso ay ka mid tahay file, edit, object type,
select effective view iyo window help qaybtaas waxaa lagu magacaabaa menu bar waa qaybta ka maamulayna softwarekan si guud oo yani haddii aan wax soo fulinayno open haddaan samaynayno haddii aan magac cusub fulinayno haddii aan save garayno close garayno export ku samaynayno fine printing waxaasoo dhan waxaa laga maamulaa qaybtan haddii edit samaynayno object ama type nooca ka bedelayno ama view ama effect ama select waxaan samaynayno ama window aynu wax ka bedelayno waxaa lagu magacaabaa menu barkaas waxaa ka hooseysa qayb kaleeto lagu magacaabo control bars waa qaybtii aan kalarkii ka bedelayna stooka gelinayna si guud qaybtaana waxay la shaqeysaa qaybtan kaleeto lagu magacaabo toolbar qaybtan iyadana waxaa lagu magacaabo toolbar waa qaybta aynu kusoo gashan lahaynay tool alaala toolkaan u baahanahay wax kastoo design garaynin waxay u baahan yihiin tools qaybtan waa marka toolskii aynu u isticmaali lahaynay si aan u samayno design ama graving sidoo kaleeto qaybtan kaleetona waxaa lagu magacaabo paneliska waa propertieska kamid ah library kamid ah sidoo kaleeto waxaa kamid ah colorska kamid ah colorska badan xaggaas leeyahay waxaan welisaa sixi doonaa softwareka markaanu barano balse qaybtan oo dhan iyo qaybtan propertieska library kamid yihiin colorska waxaa lagu magacaabaa panelis ayaa lagu magacaabaa halka qaybtan lagu magacaabona artboard sidoo kaleeto qaybtan ay ku qoran tahay lesson 1 waa documentiga noo furan waxaa lagu magacaabaa tablet document window marka interfacekan si guud haddii hal mar aan inagu soo celiyo qaybtan u koreyso waxaa lagu magacaabaa menu bar qaybtan kaleeto waxaa lagu magacaabaa control bar qaybtan kaleeto waxaa lagu magacaabaa tool bar sidoo kaleeto qaybtan waxaa lagu magacaabaa waa qaybtan wax ka controleyna colors iyo propertieska waxaa lagu magacaabaa panelis halka qaybtan lagu magacaabo artboard qaybtan kaleetona documentiga noo furan oo lagu magacaabo tablet document window waxaanu fahmi doonaa sidoo kaleeto softwarekan meesha laga soo digi lahaa softwarekan waxaa idin soo dhigi doonaa telegram waxaad ka heli doontaa descriptionka videogan soo gelinaa waxaa dhici karta in la xiro telegramkaas iyo dowladaba ku dhawaaqday waxaan idin soo dhigi doonaa linkiga aad kala digi lahaydeen softwarekan linkigan ayaa waxaan idin soo dhigi doonaa qaybta hoose descriptionka keliya linkiga keli ku dhaama koobi garayso kadib browserkaada soo kacso browser markaa soo kacsatid qaybtan basti ku dheh kadib internet searching garay waxaa kusoo bixi doonaa qaybta aad kala digi lahayd softwarekan waxaa markuu kuusoo baxo qaybtan wuxuu tirihayaa sikama ilaa 10 markuu hal gaarsiiyo kadib ayuu nagu furi doonaa adeegsano sida ujeedid baad waa gaariya qaybtan downloadska adeegsado waxaad ogaataa softwarekan markaad degsatid wuxuu ku weydiin doonaa password oo winrar raaga marka ka saaraysa password ayuu ku weydiin doonaa passwordkan waxa waaye igetintoBC.com waxaa dhici karta hal caqabad ay badanaa ardada ay ku wareeraan intaan videogan soo gabagabeynay hadal wadaagi doonaa runtii waxaan u arkay waa muhiim inaad caqabadan aad fahamtid haddii softwarekii uu si kaa dhex yaaco yacni isaan dhacdo adigana waad ku cusub tahay masasixi kartid mid kasta meeshuu lahaa ma taqaanid caqabadan ayaad qabsataba kan inuu inta leeyahay ma kala taqaanid waxaad samaynaysaa softwareka miyaad iska daleed garanaysaa maya ma daleed garan doontid waxaad ku xali doontaa caqabadan waxaad tigi doontaa qaybta menu window waa kasii dooran doontaa window markaad dooratid workspace markaa keli ku siiyey waxaa kuusoo bixi doonta qaybtan qaanadan waxaad kasii dooran doontaa reset essential class markaad keli dhahdid si default ama waaba noo saxmay wadadaas ayaad ku xali doontaa fadlan waxaan kaa codsanaya haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid oo janalkaa subscribe dhahdid runtii waxaa target noo intuu koor soo socdo ilaa gaarna weynkeed dadaalkeedana aniga milihii adiga daawanaya waxaa laga rabaa inaad isla shaqeyno asxaabtaada aad ugu sheergaraysid si ay iyagana ugu faa'iidaystaan waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan intaan ayaan maanta kusoo gabagabayn doonaa hadduu alla idmo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh